kadib markii maalintii shalay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo eedeymo u soo jeediyeen barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd kuwaas oo la xiriiray eedeysano lagu xiray magaalada Burco oo loo haystay kiis gabadh yar oo magaalada Burco ku dhimatay oo laga keenay maamulka Puntland. haddaba barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer oo wax ka weydiinay falkani ayaa iska difaacay eedeymaha ay u soo jeediyeen waxgaradkaasi waxaanu si faahfaahsan uga hadlay dhacdadani sida weyn u dhexmartay bulshada Soomaaliyeed. gobolka mas'uulka waxa halka yaal meydkaas wuu na dhibayaa islaamnimo iyo xukuumad ahaanba. hawsha anigu aan sheegayna waxay ahayd waxana waxay ka dhaceen gobolka Togdheer waxana waxay ka dhaceen meesha la yiraahdo dibadda yimaatay. hawsha gobolka Togdheer ka dhacday warqadaas uu ninkaas qoray in inantaas ku soo dhimatay oo aan aabana u hayay in la aaso ta warqad qoray وليه هلا عاصو إن أنت أبانو هاي كواسنا مرخاتي ألبا هذينو أبو يهبي قرين مركي دمنا ويبيرو ده مركي دقاتير تيجي حكي تبتكين وحالك أكو عادين أنت أسكف سكول مات أيوة وعد مركي دمنا أبو نقوى إتكلا صباح أنا وأسيق لما أرك أنت كلا تقبل ده شيء المهن إيه شيء مارك إتكلا لما أرك أنت قولي ترتاحي وحبارس بكتيرين ما عطين كرو بارس أسود بارس بوليس كله أيها وحي دبي مش كتير صوص ماري لكن مركو قول إيه دبعته ده كتير وحوي قف الماء وسته كلا يمي قال كعيو أي كل ما تهلكن يدي أبانو هاي إن أنت والله كف صدي ورقة تسرع عطين صدي وآخري دونتا وأنا وحين دونتا أنت كشيء قوت واحد برعك العوا أنت واحد كلا بارس ده بوليس كله. عبد الرحمن روبل عبد الله عبد الرحمن تريكة كلسنتي في برع.